investment qaabku analyze garayna istacaadayna ajri company ba tagayna make general journal ba tagayna make general journal marka tagno waxa analyze garayna bal meesha waxay noo marayaan bal meelay wax marayaan waxad moodaa inay noo soo baxday khaanad halkan waxa ku qoran meaning report kiisa loo kala diyaarin lahaa create ko bada ka diyaarinayso printer dad ku daabacayso hide isla dad saarayso sendi hada waxa soo sameynayso bal aan fiirino for example kale bal ku qiimeeyno oo ku analyze garayno for example kale markaan rabno inaynu sameeyno at the bank for example kale maxaan ku qoranaynaa wax ku qoranaynaa for example kale khaanadaas maxay inoo turjumaysaa khaanadana waxay inoo taagan tahay wuxuu ku yiri khaanad is the note is the account list ma garanayo yiri khaanad marka khaanad waxa leeyahay garo khaanada hadda baraan leenahay khaanada baro khaanadaas maxay tahay category ila account kasta waxa uu yahay waa inaad garanaysaa account kan ma dakhliba account kan ma kharashba account kan ma hanti guurta account kan ma bankiga account kan ma loan deynba ma credit ba ma equity adiga maxay kula tahay macad waa account waa khaanad waa bank waa leenahay hadda waa ku sheegay wuxuu ku yiri bankiga mid kasta halkan uu ku qeexaya banki account wuxuu create on for age cash account waxa la yiraahdo waxyaalaha uu qabto waxa kamid ah petty cash ku qabtaa checking buu sameeyaa saving buu sameeyaa iyo money market ba intaas buu sameeyaa good wuxuu yiri khaanada uu soo furayo waxa dhigi karaa subcontract walka gali karaa sub account description ba qori karaa faahfaahina bankiga waxaan oo dhan waxba gali maayo waxa leeyahay Stephen Carlos buug masmeynayno Stephen Carlos baan leenahay khaanadii uu ku qoray marka waxa leeyahay khaanada ama shareholderska waxa ay u soo biiray ama new investment yimi for example kala new investment waxa yimi for example kala $5,000 $5,000 new investment yahay good 5,000 marka yaa leh qaabkee u kala helayaan ma hal shareholder baa leh ma dhowr shareholders baa leh iyadana ina analyze gareyno waa for example oo kale waxa leenahay qofka koowaad oo shareholderska waxa la leenahay for example oo kale Asiyo Abdi Farah Asiyo Abdi Farah waxa leenahay male wuxuu yiri Asiyo Abdi Farah garanmayay Asiyo horta bal ii sheeg biyo waxa leenahay Asiyo maadaama aysan not list account-ga kugu jirin baa leenahay hadda barabal horta ay Asiyo waxa leenahay maadaama ay Asiyo tahay oo maadaama ay anaga investment noola timi oo anaga lacag nagu apply garaysay waxaan leenahay ma dakhli anaga na soo galayba ma kharash anaga waan galanayba ma hanti ma guurta waa garanaysaa equity way qoftaan ila anaga lacagna siisay good continue waan leenahay hadii kala hadda waa khaldamaysaa marka waxa leeyahay Stephen Carlos halkan iskale daaqadaas waxa leenahay marka ma wada lehe $1,000 oo kamid ah leedahay sidoo kale inta kale waxa iska laan leeyahay for example oo kale ama waxa leeyahay Hassan Abdi oo kale Hassan Abdi Geele oo kale Hassan Abdi Geelena waxa leenahay horta bal Hassan horta ma garanayo Hassan garanmaye Hassan garan leeyahay Hassan waxa leenahay waa equity dadka hantilaha way oo investment sameeyay continue oo soo sharaxna equity waxa loo jeedo taaqadan waxa leenahay Stephen Carlos aad baan soo xireenaa Stephen Carlos baan leenahay waxa leenahay ma wada laha baan leenahay 4,000 ma wada laha baan leenahay qofta la yiraahdo Hassan Abdi Geele wuxuu leeyahay 1,000 kamid ah leeyahay sidoo kale Maxamed Yaasiin Ali asna wuxuu leeyahay Maxamed wuxuu yiri Maxamed Yaasiin Calawi is not the list account-yadii ama waxa weeyaan chart of the account-geena kuma jire muxuu yahay walaal setup baan leenahay gabo muxuu yahay buu yiri marka ma muxuu yahay ma kishmas waa equity waan leenahay waayo sababta equity yahay muxuu yahay sababta equity yahay macna waxa waayo dadkan anagi waxa weey shareholderskeena waayo anagi wax na siiyeen anagi investment noo la yimaadeen anagi businesskii Sudan product company bay maal gashadeen dhammaadii maal gashadeen khaanad baan u furay bankiga lacagahoodina credit ka galiyay oo maxaa debitkii credit ku kala galiyay hadda khaanadu maxay tahay
khaanad waa asad waaye waxayna gashaa waa dhibitka dadka waxa way adiga markaas oo kale waxa way investmentiga ama wax kugu lene dhinaca creditka la geliyaa oo creditka ka bataan khaanada iyo waxa way wixii bangiga iyo wixii cashana waxay ka bataan dhibitka sidaas aan u analyze gareynay sidoo kale waxa leenahay 3,000 ma wada lahaa leenahay maxamed wuxuu leeyahay kun kamid ah good 2,000 for example oo kale nin la yiraahdo waxa la yiraahdaa nin la yiraahdo geele nin la yiraahdo geele Yusuf Barre wixii geele garan maayo muxuu yahay garan la yahay oo baro waana equity waaye waa hantilihii dadka shirkadda wax ku darsaday way continue dheh continue waxa leenahay Zervan Carlos waxa leenahay ma wada laha baa leenahay 2,000 kun kamid uu leeyahay good maxaa soo haray kun baa soo haray ba u maleynay kunkaasna waxa leenahay waxa iska leh nin la yiraahdo oo aan saaxiibanahay oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa Yusuf for example kale Yusuf Barre geele oo kale Barre geele waa leenahay ba iska leh wuxuu ku yiri Yusuf garan maayo hadda baro waa equity waxa way confirmed continue على داغد نسفن كلوس بالله ما أنت وجه دوا ملينيا total waxa weeyaan dhibidkayga total creditkayga waa isleeyihiin oo wax meeshaas ku khaldamo male oo sida loo kala leeyahay shanta nin ama shanta qof waxa weeyaan baa keensaday 4 wiil iyo hal gabar baa waxay keensadeen lacagtaas inta leego 5,000 ah ninba kun buu leeyimo investment ah halkaas aanu gelinay khaanadeeni oo aanu gelinay 50,000 iyo 5,000 ahayd waxaan u gelinay khaanad markaan abuurayno waa bangi waana dhibid baan u gelinaynaa waa asad waana current asad lacagahan Asiya Cabdi Faarax حسن عبد جيلي محمد ياسين علي جيلي يوسف بري جيلي انت بوحل الربع ان لقى اركو قيبت ايكوتي الشركه لو اوغادو انت هوري جري يغون ان لو سو دروا جود سفن كلوس بان لهناي الذي واحد بدلين هي هديك كلا بلانو ارغنو سي واحد اسكو بدلين سي واحد اسكو اناليز غريان بالريبورت انتغنو ربما داتنا بالانس شيت كان فيرينو بالانس شيت كان بال ستاندرد كان فيرينو ما حيس بدلي حقيه wax ku analyze gareynay sidee wax inoo yihiin bal aynu qiimeeyno Ahmed balance sheet keenino hadda bataba moodaa marka waxa way markaas asaas u badanay oo jeedaayo khaanada maanta nagu soo biidho oo bangiga ahayd waa 5,000 sidoo kale total checking saving waxa la yiraahdaa shirkadu inta zeefka oo khaanada ku jirto ama haday bangi aan leeyahay ama haday cash aan leeyahay waa 5,000 account receivable lacagaha ka maqan shirkada waa 1,100 account receivable waa 1,100 totalka inventory asset ku 4,800 isku dardan total current asset ku waa 10,900 good halka waxa kale oo jira iyagana wax la yiraahdo liability and equity dadkii deynteedii iyo dadka hantida la liability ba meesha jiro current liability account payable waxaan u jeednaa account payable halka uu u jeedayo account payable waxa weeyaan dadkii deymaha shirkadda ku lahaa intaas inay leeyihiin for example oo kale account payable waa 600